السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عن كدب walaalaha ku xiran channelkan Islamic waxaan idiin soo bandhigay laba application oo aad u fiican oo aad ka heli doontaan insha Allah daawasho wacan. application-kooda waa Simple Control. application-kan waxaad ka heli kartaan Play Store-ka. application-kan waa application aad u fiican. application-kan wax root ah kuma shaqeeyo. application-kan wuxuu qabtaa in aad ku dhex isticmaasho gudaha shaashadda. runtii aniga application-kan markasto ayaan isticmaalaa, waayo mobilkayga marmar wuu ku dhegdhegaa back button-ka iyo resume button-ka. That's why aan u isticmaalo application-kan. waxaad u bedelan kartaa dhanka bidix back button-ka iyo home button-ka iyo resume button-ka. waxaadna u bedelan kartaa dhanka midig. waxaad keensan kartaa hoos back button-ka iyo home button-ka iyo resume button-ka. wuxuu leeyahay optiono badan. waxaad bedeli kartaa back button-ka oo waxaad ku bedeli kartaa resume button-ka. waxaad bedeli kartaa kalarka icon-ka. waxaadna bedeli kartaa background-ka. waxaadna weynayn kartaa oodna yaran kartaa icon-ka iyo kalarka background-ka. waxaad bedeli kartaa icon-ka qaababka u yaalo. waxaad ka dhigi kartaa qaabab kala duwan. waxaad u bedelan kartaa qaabka S8, Note 8 iyo Google Pixel. application-ka labaad waxa waaye 10-bit block. waxaad ka heli kartaan Play Store-ka. application-kan waa application aan caadi ahayn. waxa ku jeclaaday ayaa ah inaad ku xiro karto taleefankaaga, wejiga iyo faraha. waxaadna xiri kartaa application-yada markaad soo kaxsato. application-kan wuxuu ku weydiinayaa in aad ku xirato password-kan ayaa kuu fududaynayo in haddii uu kugu furmi waayo wejiga ama faraha in aad asiga ku furo karto. haddii aad doonayso in aad xirto application-yada adigoo mid u soo dooranayo. haddii aad rabtana inaad xirto screen lock bis, taawo screen lock-ka. haddii aad rabtana inaad ku xirto wejiga, waxaad aadaysaa 3 xariiqadood kadib face lock. taawo start. markaad taawato kadib qad yar ama internet yar ayuu u baahan yahay si wejiga aad ku xirato. kadib taawo enable now. meesha wareega ayaad waxaad ku aadinaysaa wejigaaga. haddii aad rabto face lock in lagugu xiro screen lock ama application lock, taawo mid mise labadaba dooro. haddii aad rabtana in weji dheeraad aad ku darsatid setting-ka, taawo. haddii taleefankaaga uu leeyahay fingerprint waad ku xiri kartaa. haddii uusan lahaynna kuma xiri kartid. waxaad iska bedeli kartaa password-ka qaabkiisa. application-kan waxaad ka dhigi kartaa mid aan tirtirmaynin. waxaadna ku xiran kartaa email. password ayaad ku isticmaali kartaa application-kan iyo kan lagu soo gaday taleefankaaga. misaal ayaad ku isticmaali kartaa